السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي ذا قيمة بالنيدي إن أنت ولا شيء وحين نسوي شيء بل ما أنت كتب وحن سكود دينا قفل بينكم أنت كيس إن شاء الله سوق هذا إن سهل كاكواد عرفتان بولاش سمير تفنشر بيسوي شيء وحنا دقيقة عستنا اللي وسوق هذا مرة بدين كذي تشوقا ويدين شقين هي هارت سمو وقدين مركا وحن بيصير برنامج وجوه الرئيسي halka dambe waayo marka dambe wax laga yaabaa inay ilaawo inaan saasheedaas aan uga jawaab samiiray walaal qaali saad horta sheegaysid waxba ka jira waxna kama jiraan oo waxa ka jira odayga Saliim Khan la yiraahdo inuu laba xaas leeyahay oo nolosha uu laba marwo uu la qaybsaday gabdhahaasna la kala yiraahdo Sushila Charak oo ah hooyada Zalman Arbaaz Suhail iyo Alfira Khan Agni Hodri dhashay oo afartan aad aragtid waa isku hooyo waana isku aabe caruur kale oo la dhalatay iyagana ma jirto inantan aad halkan ka aragtidna waa inan yar ay korsadeen oo waxa la yiraaday caruur yar sida caadiga la tuuro Taj Mahal agtiisa ayaa inanta yar laga soo qaado inan yar oo deewad aragtaa inaan shaqaba ku lahayn inanta yar markay korsadeen walaata kala u dhashay walaatana u dhashay markaa gabadha kale laakiin guursaday caruur ma dhalin oo isagoo xaas leh oo caruurtoodu ay jirto waaweyn tahayba ayuu gabadhaas guursaday oo gabadhaasna aad bay isu jeclaayeen oo waxa la yiri kontomeeyadkii iyo lixdameeyadkii gabadhan maadaama aad iyo aad xagga daansiga bariga aan laga daba dhufan jirin oo cajiib ay ahayd macnaha shirkadda Bollywoodka ay kaga yaabsatay ayay tiri yacni garab waxa igu siiyeen shirkadda Bollywoodka aan galo Saliim Khan markii hore walaalo tinimo ahayd yacni walaatinimadii ayaa markii daba jacayl isku bedeshay markii daba go'aan buu gaaray inuu guursado markuu guursadayna gabadhaas markaas dhowr 40 jir bay ahayd waxba ilaahay muu kala siino ismay dhalin markaa xitaa maray Arbaaz Khan Halan ay kulahayd Halan waxaaska labaad ee odayga aan caruurta u dhalinay islaantane markay kulahayd oo islaantan hadda xasuustaan filimkii Doon bay ku jirtay cali dheere filimkaasi aad caan ugu tahay meera dil biyaariga diiwana booskeed waxa matalaysa filimka Doonka uu Shaarukh mataliyo Kareena Kapoor wata heesta matalaysa typical sidii bay matalaysa marka filimkaasi caan ku tahay daansigan laga daba dhufan jiray marka waxa jira aad buu garbisiiyay markii daba jacaylkoodii waxa ku guur u bedelay xitaa Arbaaz Khan mar bay ku leedahay macna aad baan uga xumaa macna hooyada yacni inaan dhaawac gaarsiyo laakiin daba ku khasbana macnaha kii jacayl weynaana way ugu dhacay odayga deena kaman maari makarino macna day ugu qaata nasiib baan leeyahay haddaan reer Khan ka mid ahay maanta oo aan ahay Helen Richardson Khan baa la yiraahdaayo aad baan ugu faraxsanahay bay tiri marka islaanta halka ka aragtid iyo islaantanba imika waa la wada qabaa odayga wada qaba laakiin walaasha macaanay islaantani waxa alla waxa u dhashay ma jirto afartan caruur isku bah waa isku hooyo waa isku aabe inanta yarna way korsadeen waa rajaynayaa in aan su'aashaadii aan ka qanciyo insha Allah taala iminkana waxaan u galeynaa barnaamijkeena Divya Balan Divya ma ogtahay inay tahay waaweynka Kareena iyo Priyanka iyo dadkan ay nagu soo noqnoqday Divya inay xitaa iyaga ka horeyso waxaan ku ay qof waaweynka ay tahay horta ma ogtihiin Divya naag tagtay weeye gabadhani waxay dhalatay 79 bay dhalatay waxay ku guuleystay waxaanu abaalmarnaa waa gabadha haysta 7 film fare award bay haysta xitaa waxay haystaa National Film Award war Padma Shri ayaa haysta oo dawladdu ay u garatay 2014 igu soo carmaaha laakiin gabadha nolosheedii markeedii hore way iska soo tacabtay markii hore TV series iyo waxa ku soo bilowday musalsalaad xagga TV-ga Hampach musalsal la oran jiray ay yarayd aad bay u yarayd ay ku soo bilowday markii dambe hadana ads iyo xayeysiin advertising wax noocaas ay sameyn jirtay markii dambe waxay mar kaliya ay ilaahay ka bari jirtay gabadhani in ay shirkadda Bollywoodka ay يعني لوقت تلاقى شو إنك استفهمت كده مركل أودي دنا لكن هو مركل طب حتى هير واحد قاعد بيتري أنت مر لا يلصح حذاء فيلم أيانك هدنا بروديوسر كاو فينت جبر اللي أورنتري أيه هدنا يري أنت تشابيه كبرتن معنا كم أقول عني ومركب بالورك كده بنقالي جي حاجة عشان مركل رقص بلاد وقف صار رفعت المسلسل الله واحد قصة قصة تشويه واحد قصة لكن حاجة بالورك وأداك تهم وقت حاجة كفرت اسكمد معها waxay markuu producer markuu ninkii directorkii la ballamay baa producerka xoogaa ugu yar adkeeyo inta tijaabinaya horta iskama hubo qoftan wide wanaag cusub weey filmka waxa la yiraahdaa Barinita oo Sanjay Dutt iyo Saif Ali Khan kula jira filimkaas markaa markii dambe tijaabo fara badan oo halka ay cadeeyay bay jiray kadib
وقعتي وحيري خلاص برنيتها قبل أن دوني فيلم كان إن إيمة الشو وأديك ومعلم ما كملنا واد إيمة هتعلم دوتها معنا فيلم كان قف بكارد جاية أن يعني عادي هنسامنتي سالة وأنا شلنا وحيتري إلا ما أنت ذن أيام هالعليايو فيلمkaas waxaa talaabadii iyo guushii ugu horeysay aan shirkadda Bluurka aan la soo galo aad bay ugu faraxsantay markaa gabadhan Safal Khan Babiriga markaa la isku xantay loo jiray xiriir bay leeyihiin inkastoo markii dambe la yiri waxa ka badxayaan laakiin sheekada tuunkaasi wuu jiraa kadib markay filimka ay matashay filmo badan bay la timi waxay la timi hadaba filmo taariikhda galay bay la timi filmo taariikhda galay waliba gabadha waxay haystaa record ah 5 filin oo isugu xiga inay u noqdeen filmo hit ah oo u guuleystay sida filimka ugu horeeyay horta ay horta keentay horta filimka 2005 buu ahaa barnaamijyadan ku sheegay Safal Khan Sanjay kula jirto oo film drama abu ahaa oo music ah buu ahaa marka aad buu ugu guuleystay ganacsi ahaan haddana 2007 baa xamitashay filmka Bulbulaya filmkan waa ka u laba kacay haddana 5 kale oo isku xiga oo la yaabay ayay matashay filimkii ba ay qaatay macna qisooyin yar gooniye bay qaadan jirtay 2009 waa filimkii de uu madaxweynaan jiray odayga Cali Dheere filimka cabsi buu ahaa Yemen baan joogay waqtiga cabsi buu ahaa marka daawad Cali Dheere madaxweynaaday ayay kula jirtay filimkaas uu guuleystay ishqiya filimka la yiraahdo ee kula jirtay Arshad Warsi filimkaasna waa film uu guuleystay isna oo inaba aad mu ahayn oo black comedy buu isagu 2010 haddana waxa la timay filimkii thriller-ka ah No One Killed Jessica ay la timay isna u laba qarxay war xitaa 2011 haddana waxa la timay Kahani bay la timay oo ay Shahid Kapoor kula jirtay Soman Kahani uu qarxay 2012 haddana waxa National Award ay ku qaadatayba waa filimkii Dirty Picture filimkaas ay ku qaadatay ka waran Allah injidu marka qarxaysa si wax u qiimeeyaan ولي بليتر فيلم عجيبة بقى القرن يا ويقول تريستين أو يعني فيلش بين قدوك عيد عنان فيلم هذا كهلي كارين أو إسكاح حنا وحلقرن يا وحبل بقعدنا يا ناشنال أوردز وحبل بقعدنا يا مركا قبضنا وحي كشي مركا بوك بال ذهبي كقشي شركة بوليوود كمان دام إيشام فيلين يولي لبس تحفلين هرنا وقولي لكن شاف فيلم إسكاح حجسي بسم الله الرحمن الرحيم عمادي ذا اللي هيسن كرواي والله يا عان دليفري نقطة هذا هو عان دليفري كبر نقطة أدو لبض كون أفر تبانكي كدب قوي تبانكي كدب ويخير هكتاي أو تي جوسين كان يا سيدارت أو شنو بروديوسر روي كابور أو أديتيا روي كابور كأد قرنيسان ولالكي سوين ويه marka kaasi guursatay guriga iska degtay reerkeeda iska dhaqataa laakiin markii dambe xoogaad ugu ku soo yar noqotay 2017 Tom Hardy filimka la yiraahdo iyo Mission Mangal iyo oo noqday iyaga 2019 iyo 2017 iyo ay matashay baa jiro ilaa 22 film bay matalaysay oo la yiraahdo Jalsa Sherni 2021 Shakuntala Devi 2020 waxa filmana imika matashay filmadaas waxa laga sii daayay oo si macna live looga sii daayay Amazon Prime Amazon-ta ayaa laga sii daayay marka haddana guul labaad bay la soo noqotay ayaa la oran karaa guul labaad oo xal bay gabadhan mar labaad la soo noqotay ninka lagu joomi jiray oo in badan ay sheekaysteen oo saaxiibtinimadooda xooga ay yar xididaysatay oo aad looga shakiyo xitaa Kareena Kapoor buufis iyo shaki ay ka qaaday oo ay tuhuntay waxay ahayd filimkii horta Kismet Connection markii ay la matashay Shahid Kapoor ayaa xiriir kii jacaylaba ka dhex qarxay sokorsiibta isku noqdeen marka laakiin may qirna public ahaan ka sheeg laakiin markii dabanaad oo iska kala dhamaadeen ad markii dabana Karan Johar xafladu leeyahay bay odageedan ku kulmeen 2 sano markay sheegsanayeenna waaba iskuursadeen gabadhan iminka deer waa qof weyn macna qof weyn waxa ka wada macna waa la jamad oo maadaama ay bad mashaari ay abaalmarinta heshay حتى واحد حبين مهم كتاي India Central Board of Film Certification ميلا مارتي ضدك certificate شهادة للصيابة ضدك فيلمادا أيه حبين كتاي معنا هو وين كسيدا معنا شارف خاني أو كلام يعني اللي جبت وين بنقطة ديونين كدونه بروديوسر wax badan baa marka gabadhan isugu beegan xagga bini'aadnimada oo ololeysa xagga dumarka iyo haweenka oo ololeysa iyo sidii ay magarashan noloshooda kor ugu qaadan lahaayeen dhinaca kale waxay mararka qaar ay hosted ka noqotay radio show-yada
حفلة مهم كأ يعني وقف له جمد ولا حساب سنة يوي حاجة هنتي ذو حالة يرسلي 2 مليون دولار بهيشتها حاجة الدين تها لكن عجيب يعني واللي معنا مركل الدين هذا نورشك واحد رضا نيو دينا هيستودي من قرن سوا بلا دين يعني أنا waxaan aaminsanahay nolosha waxaan aaminsanahay yani diinba ma haysto oo kale adigu sida dadka qaar ay wad garanaysan iska bilaadin weey bismillaahir rahmaanir marka sida kale nolosha dimiko kala deganta hawlaheeda iska wadataa maanta waxaan ku lahaban maleynayaa dibiya baalan ba qofta la iraada laakiin waxaan komentiyadina akhriyo qof ay ku lahaa dibiya party ka soo sheekayo markaasaan ku yar qalday san maleynayo أصحابتي قيمها بدنيدة إن شاء الله تعالى برنامج كحيجي نوع هنسا وين لو سعودة كليرو. Thank you.